kulan wanaagsan ku soo dhawaada wararka Soomaalida iyo caalamka waxaad ka daawanaysaan warbaahinta raadsan qodobada aan idiin haynana waxa kamid ah ismarwaa ka taagan shirka Dhuusamareeb Dani iyo Madoobe oo markii hore isku dhinac ahaa falaarta ayaa lagu sii jeediyay natiijada laga filan karo shirkaas saacadaha soo aadan iyo madaxweyne Farmaajo oo Muqdisho dib ugu soo laabanaya jabhadda General Xuud oo maanta weerar ku qaaday magaalada Beledweyne iyo dagaalkii dhacay oo faahfaahin aan idinkaga hayno safaarad ku taala magaalada Addis Ababa oo laga badbaadiyay weerar argagixiso oo lagu ekeeyo 5 fursadood oo la sheegay inuu lumiyay madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanada Cabdiraxmaan Odawaa iyo Mahad Salaad oo qaatay doorkii madaxweyne Qoorqoor lahaa hogaamiyaha ahlusunnadii burburtay Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax oo ka digay halis ka dhalan karta dagaal beeleedka ka socda duleedka Dhuusamareeb madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixina waxa uu ka hadlay si aan gambasho lahayn isgarabtaag uu u muujiyay dawladda Djibouti kadib eedeyntii Soomaaliya maalmo ka hor u jeedisay Kenya iyo Imaaraadka Carabta oo isha ku haya waxa ka soo bixi kara shirka Dhuusamareeb waliba inay galaangal ku yeeshaan ay doonayaan qodobka dibaddana waxa ugu dooron wasiirka arrimaha dibadda dalka Urdun oo xalka gaarista dagaalka Syria u jooga dalka Ruushka intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu muhiimsan warbaahinta raadsan waa 4 bisha 2 2021 aan ku bilowno ismarwaa ayaa ka taagan sida la leeyahay qodobada qaar shirka Dhuusamareeb iyadoona madaxda dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir intuba ay sheegeen in shirkaas waxyaabo badan la isku dhaafsaday haddaba madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirka uu hogaamiyay ka sokay waxa uu si gaar laba jeer kulamo uu la qaatay madaxda dawlad goboleedyada Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo duqa Muqdisho Cumar Filish taasoo shaki badan abuurtay waxaana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo isku mabda ah ay ka fiirsanayaan qodobada ay ku saxiixi doonaan warmurtiyeedkana laga soo saari doono shirkaasi saacadaha soo aadan ayaa laga yaabaa in la soo gabagabeeyay shirka iyadoona madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho dadka arrimaha siyaasadda u dhundaloole waxay leeyihiin ma muuqato natiijo fiican oo laga filan karo shirkaas marka loo eego dadaalka lagu bixiyay in la isku keeno dhinacyadan siyaasad ahaan iska soo horjeeday doornimadii maanta warar naga soo gaaray Dhuusamareeb iyo shirka waxay sheegayaan in xal laga gaaray qodob ka mid ah kuwii la isku hayay ee muranka badan abuuray iyadoona arrinta gobolka Gado ee doorashada xildhibaanada ka imanaya laga heshiiyay si hordhaca 3 qodob ayaana heshiiskaas la sheegay in laga gaaray waxaana madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu weli ku andacoonayaa in maamulkiisa Jubbaland dib loogu celiyo gobolka Gado oo ay hore u maamuli jireen in ciidamo aan u dhalan wadamada Itoobiya Kenya iyo Djibouti la geeyo gobolka Gado oo la isku raacay iyo in arrinta doorashada xildhibaanada ka imaanaya gobolka Gado iyo xasarada Axmed Madoobe uu dawladda federaalka ku hayo xal loo saaro iyadoo hogaan looga dhigay arrintaas madaxweynayaasha Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo waliba Puntland arrimaha doorashada ayaana ay u muuqataa in shirkaas madaxweyne Farmaajo uu isku loogay dhinaca Axmed Madoobe waxaana ay u muuqataa Axmed Madoobe in uu markan ka guuleystay madaxtooyada Soomaaliya marka loo eego sida uu rabay oo ay u badan tahay in loo yeelo dhinaca kale dawladaha Kenya iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegaya in isha ku hayaan waxa ka soo baxay shirka magaalada Dhuusamareeb maadaama la sheegay in Axmed Madoobe ay taageerayaan dawladda Kenya halkaas ciidanina uu taageero ka haysto xiriir dhowna uu kala dhaxeeyo dawladda isku taga Imaaraadka Carabta waxa xitaa la sheegay in galaangal weyn inay ku yeeshaan ay doonayeen go'aan ka gaarista qodobada shirkaas labada madaxweyne oo ay labadaasi dawladood kala taageerayaan sida la leeyahay dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha siyaasadda ee dalka isagoona eedeyn kulul u jeediyay madaxtooyada qaranka Shariif Sheekh Axmed ayaa si gaar ah ula kulmay bulshada qaybaheeda kala duwan isaga oo kala hadlay arrimaha la xiriira xaaladda dalka iyo sida ugu habboon ee looga gudbi karo xaaladda adag ee xilligan lagu jiro sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa la kulmay odayaasha dhaqanka beelaha Jareerweyne kuwaas oo tabasho badan ka qaba awood qaybsiga dalka iyo arrimaha doorashooyinka maalmo ka hor Shariif Sheekh Axmed ayaa Muqdisho kula kulmay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyagoo ka hadlay xaaladda guud ee dalka gudoomiyaha midowga murashaxiinta mucaaradka ahna gudoomiyaha xisbiga himilo qaran ahna sidoo kale gudoomiyaha isbahaysiga ay ku bahoobeen xisbiyada qaran ayaa waxa uu Shariif Sheekh Axmed sheegay in dalkan meel fog ay ka keeneen aan la ogolaan doonin in dib loo celiyo
qaybaha hore ayaa daawanaysaan. waxaa dagaal uu maanta ka dhacay magaalada beledweyne gelinkii hore kadib markii weerar ay ku qaadeen magaaladaas jabhadda uu hogaamiyo abuukar warsame xuud. jenaraal xuud ayaa la sheegay in ciidankiisu ay ka xumaadeen 6 haweena oo maalmo ka hor ciidamada ammaanku ay xabsiga dhigeen iyagoo ka qayb qaadanayay dibadbax looga soo horjeeday maamulka Hirshabeelle. ila deegaanka oo beledweyne jooga ayaa sheegay in rasaasta laga maqlay xaafadaha magaalada iyadoo sidoo kale muddo xaaladdu ay ahayd mid cakiran. inkastoo markii dambe jabhadda jenaraal xuud la sheegay in ay dib ugu laabteen deegaanka ceelgaal oo ay ka yimaadeen markii hore. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed ayaa war uu soo saaray maanta barqadii waxa uu kaga hadlay dagaalkii dhacay isagoo sheegay in waajib dastuuriya ay ka saaran tahay xaqiijinta amniga iyo badqabka shacabka Hirshabeelle cidna looguma dulqaadan doono abuurista xaalada amni darro. ciidanka amnigu waa ay ku mahadsan yihiin feejignaanta har iyo habeen ay ku jiraan ayuu yiri. xaaladda ayaa hadda mid degan marka loo eego dagaalkii saaka ka dhacay magaalada beledweyne iyadoo khasaare dhimasho iyo dhaawac la sheegay inuu ka dhashay inkastoo inta uu gaarsiisan yahay aan weli la ogaanin. markana Itoobiya ciidamada nabad sugidda dalka Itoobiya ayaa ka hortagay weerar qorsheysan oo lagu qaadi lahaa safaaradda Imaaraadka Carabta oo ku leeyahay caasimadda Itoobiya Addis Ababa. weerarkaas 15 qofood ayaa loo qabtay oo lala xiriiriyay in ay qorsheynayeen weerar argagixisanimo ay ku qaadaan xarunta safaaradda. wakaaladda wararka Itoobiya ee loo soo gaabiyay IBA ayaa waxa ay saacado ka hor shaacisay in hay'adda sirdoonka qaranka ee Itoobiya ee NIS la yiraahdo ay ka warheshay xogtan isla markaana loo qabtay dad ka shaqeynayay awaamiir shisheeye sida ay hadalka u dhigeen. kooxdan ayaa qaadanayay awaamiir koox ajnabi oo argagixiso oo isku diyaarinayay inay waxyeello weyn u geystaan hantida iyo nolosha dadka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay taliska NIS ee Itoobiya. howlgalka ayaa sidoo kale lagu soo qabtay hub fara badan waxyaabaha qarxa iyo dukumiintiyo ay isticmaalayeen kooxda shabkadda la qabtay sida laga soo xigtay dowladda Itoobiya. laakiin lama sheegin cid gaar ah oo ay gacan saar la leeyihiin dadka la sheegay in la qabtay ee doonayay inay weeraraan safaaradda Imaaraadka Carabta ee magaalada Addis Ababa. dowladda Itoobiya ayaa bilo ka hor sheegtay in xubno ka tirsan al-shabaab iyo daacishta Soomaaliya shabkado xiriir la leh ay ku qabatay howlgallo ay ka fuliyeen gudaha dalka Itoobiya. waa hagaag 5 fursad ayaa la sheegay in madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu lumiyay inta xukunka uu hayo. Sheekh Maxamed Idriis oo kamid culimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay markii hore inuu taageersanaa madaxweyne Farmaajo isla markaana uu tilmaamay 5 fursad oo madaxweynaha uu lumiyay 4 sano oo xilka uu hayay. 5taas ayaa waxay kala yihiin 1 inuu lumiyay mideynta ummadda kala irdhowday ama kala fogaatay oo uu u tago magaalo walba dadkana la fariisto si la isku saamaxo una hirgeliyo doorashada. 2 inuu lumiyay fursad uu uga faa'iideysan karay 2 dawladood oo aad ugu dhow waana Qatar iyo Turkiga kuwaas oo midna ay tahay dawlad wax soo saar leh midna ay tahay dawlad qani ah. 3 inuu lumiyay fursad uu wax uga bedelo nidaamka siyaasadeed ee dalka ka jira iyo inuu doorasho guud dalka oo dhan ka hirgeliyo. 4 in uu lumiyay madaxweyne Farmaajo taageeradii faraha badnaa oo ay shacabka Soomaaliyeed u hayeen oo aanu helin madaxweyne ka horeeyay isaga wuxuuna helay taageero shacbi oo aad u weynaa balse hadda waa waxba kama jiraan. iyo qodobka 5aad uu madaxweyne Farmaajo lumiyay ayuu Sheekh Maxamed Idriis ku sheegay fursad uu ku dhisi karay ciidamo qaran iyo sugidda amniga iyo inuu wax ka qabto amniga caasimadda magaalada Muqdisho. madaxtooyada Soomaaliya ayaa isku dayaysa iyadoo arrimahan oo idin lagu eedeynayo in haddana ay xukunka ku soo laabtaan. markana aan ku laabana Dhuusamareeb. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug duleedkeeda waxaa ka soconaya dagaal u dhaxeeya 2 maleeshiya beeleed. midkood maleeshiyaadkaas waxaa ka soo jeeda madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. deegaan ahaan magaalada Cadaado ayaa ay degaan maleeshiyaadka dagaalamaya deegaanka Xanan Buure ee duleedka Dhuusamareeb ayaana la sheegay in dagaalka maalmihii dambe ka socday khasaare dhimasho iyo dhaawac u geystay. xildhibaanada golaha shacabka ku jira ee Mahad Maxamed Salaad iyo Cabdiraxmaan Odowa ayaa qaatay door ah in ay dhexdhexaadin ka dhex sameeyaan dhinacyada dagaalamaya iyagoo abaabulay odayaal iyo waxgarad ka soo kala jeeda beelaha Ceer iyo Saleebaan ee dagaalka uu dhaxeeyo. waxaana la soo sheegaya in madaxweyne Qorqor doorkii uu lahaa ay qaateen xildhibaanadaas maadaama uu ku bixi waayay arintan xalka gaaristeeda.
hogaamiyihii hore ee culimada ahlusunna macalin maxamuud sheekh xasan faarax ayaa dhankiisa ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedkan isagoona ka digay in xaaladdu ay meel halisa gaari karto haddii aan wax laga qaban arrimahan ka dhacaya deegaanka xanan buure ee duleedka dhuusamareeb. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ka hadlay arrinta ku saabsan eedeyn dowladda soomaaliya ay u jeedisay dhigeeda jabuuti dhowaan. xukuumadda hargeysa ayaa markii ugu horreysay ka hadashay eedeyntaas waxaana ay la xidhiirtay warbixintii guddiga xaqiiqa raadinta igad ay u saartay xiisadda ka dhex aloosan soomaaliya iyo kenya iyo falcelinta ay soomaaliya ka samaysay. wakiilka somalilan u fadhiyay dalka jabuuti cabdilfataax siciid axmed ayaa warbaahinta mar uu la hadlay waxa uu dowladda jabuuti ka difaacay eedeymaha dowladda federaalka soomaaliya kaga soo gaaray kuwaas uu ku tilmaamay xagxagasho aan laga fiirsan. waxa uu si weyn u dhaliilay siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya taas uu ku tilmaamay in lagu hagayo siyaasad aan deganayn islamarkaana uu ku jiro degdeg badan. sidoo kale somalilan ayaa waxa ay sheegtay in ay isgarabtaag muuqata u samaynayso walaalaha jabuuti. tusaale jabuuti iyo eritrea waa kuwo ishaya laakiin ilaa hadda safaaradahoodii may kala qaadan. tii eritreyana waa ay ka furan tahay jabuuti, tii jabuutina waa ay ka furan tahay casmara. marka soomaaliya waxaad moodaa degdeg badan oo aan ka fiirsasho lahayn, siyaasad aan deganayn oo dowladdaas ay ku dhaqmayso, ayuu yidhi wakiilka somalilan u fadhiya jabuuti cabdilfataax siciid. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waraysi uu bixiyey saacado ka hor uu b b c da siiyey waxa uu ku sheegay in iyagu ay yihiin kuwo qaran ka madax bannaan soomaaliya intiisa kale. markanna qodobka dibadda, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka urdun ayman alzavadi ayaa u jooga magaalada moscow ee caasimadda waddanka ruushka xalka gaarista dagaalka 10 sano ka soconaya gudaha dalka syriya. waxa uu wasiir alzavadi la kulmay dhigiisa dalka ruushka sergey lavrov waxaana socdaalkiisii arbacadii shalay uu daaranaa sidii xal looga gaari lahaa dagaalkan muddada 10 sano ilaa 2011 ka soconaya qaybo ka mid ah dalka Syria. Ruushka ayaa faragelin ku sameeyay arrimaha dalka Syria dagaalka ka jira iyadoo 2015 taageero dhow siiyay madaxweynaha waddankaasi Bashar al-Assad. xukuumadda Jordan ayaa waxa ay sheegaysaa in ay hadda rajo ka qabto wadiiqo kale loo maro dagaalkan dhiigga badan ku daadanaya ee dalka Syria ka soconaya. guud ahaan daawadayaal intaasi aan ku soo gabagabeynayna wararka Soomaalida iyo caalamka oo aad ka daawanayseen warbaahinta raadsan. inta aan dib dambe isku arki doonno nabadgelyo.